Wardegdeg oo hadda soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in ciidanka xoogga dalka iyo xoogagga deegaanka ay hadda gudaha u galeen degmada Xaradheer ee koonfurta gobolka Mudug halkaasi oo kooxda Al-Shabaab ay maamulayeen tan iyo 2010kii waxaana la sheegay in deegaanka ay ka carreen oo ay baneeyeen degmadaasi ciidanka ayaa hadda baaritaan ka wada xaafadaha degmada wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijiyay qabashada degmada Xaradheer oo ka tirsan degmooyinka gobolka Mudug wasiirka oo arintaasi ka hadlayna waxa uu yiri alxamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasuulillahi wa ba'd ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa mahad u sugnaatay taliyaha ciidanka dhulka saraakiisha madaxda qaranka ee halka ku sugan dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed salaamullaahi calaykum wa rahmatuhu wa barakaatuh maanta waa maalin ilaahay subxaanahu wa ta'ala ummadda Soomaaliyeed ugu gargaaray bishaarooyin waaweyn iyo guulo waaweyn guushaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa na siiyey asaga ayaan uga mahad celinaynaa thumma waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta suuro geliyay in cadowga laga saaro laba degmo oo waaweyn iyo tuulooyinkii ku hareereysnaa degmooyinkaas waa Qalcad iyo Xaradheer oo ummadda Soomaaliyeed in muddo ah sugaysay waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo geesiyaasha ciidamada qalabka sida oo kaashanaya dadka deegaanka oo aanan loo kala harin waxay maanta ku guuleysteen in ay gacanta ku dhigaan Qalcad iyo Xaradheer oo hadda lagu sugan yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin dhamaantood waxaan rabaa inaan cadowga oo jabka gaaray ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aynan kibir gelinin oo deegaanada haray aan ka saarno cadowgan waa cadow in muddo ummadda Soomaaliyeed dhibaateynayay naftooda iyo maalkoodaba ku dhibaateynayay waxa xaqiiqo ah in maaragta bilooyinkii la soo dhaafay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoona nasan iyagoona hargelin familkoodii reerahooda arkin ay jiida hore u taagnaayeen nimankan khawaarijta in ummadda maaragta laga qabto u taagnaayeen waxa maaragta howlgalo lagu jiray oo laga soo bilaabay Hiiraan Shabeellada Dhexe iyo dhammaan gobolada gaar ahaan sida hadda maaragta ku socoto Galgaduud iyo maaragta Mudugba maaragta xaqiiqdii waxaan dhihi karnaa qof soo go'aansaday baa shaqadaas fulin karay waa u mahadinaynaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu horeeyo taliyaha ciidanka maaragta lugta iyo dhammaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo rabnaa inaan u mahad celino dhammaan maamul goboleedyada qaybta ka qaatay la dagaalanka khawaarijta gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug waxa xaqiiqo ah hadaanan shacabka Soomaaliyeed aynan ahaan lahayn kuwa horta taagan oo qoryaha sita oo biyaha sida caanaha iyo xoolaha nagu daba sida hadaysan ahaan lahayn guulahan maanta sheeganayna lama gaareen waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu hambaliyeeyo madaxweynaha qaranka oo dagaalkan khawaarijta lagu qaaday hormuudka u ah oo dhammaan annaga iyo maaragta xukuumad ahaan iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida u ahaa hoggaan xaqiiqdii habeen iyo maalin aanan ka harsan in maaragta dagaalkaasi uu guuleysto hadduu furintu joogo iyo hadduu xafiiska joogaba maaragta shaqadaas uu garab taagnaa waxaan mar labaad leeyahay faanooli fare kama qodna weli Galmudug deegaano muhiim ayaa cadowga gacantooda ku jira waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socdo in gacantooda laga saaro reer Galmudug waxaan leeyahay isku tashta reer Galmudug waxaan leeyahay qarankiina ku tashta reer Galmudug waxaan leeyahay cadowgu yuusan dib noogu soo laabanin meelihii laga xoreeyay yuusan dib noogu soo laabanin waxaan maanta oo kale ku qiyaasi karaa kelmadii ay igu magac dareen oo ahayd maanta oo kale madaxaana furan Galmudug oo dhan madaxa furan Soomaali oo dhan madaxa furan aad u mahadsantihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qiimaha badan leh oo waqtiga iyo maalka iyo xoogga iyo aqliga geliyay oo labadan maalin oo la soo dhaafay hor socday
oo maanta aan u taagannahay in xarar dheere gacanteenu ku jirto galcad gacanteenu ku jirto iyagana waa ay mahadsan yihiin salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu la soco insha Allah wararkayga dambe wixii ka soo kordha qabashada degmada Xardheer oo kamid ah degmooyinka ay muddada dheer haysteen kooxda al-shabaab maantana ay la wareegtay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug iyo waliba ciidamada dowladda iyo kuwa xoogaga deegaanka